bulshada jiilka u soo kacay bulshada waxyaalaha ay ku taamaysa inay berri noqdaan dadka wax ka bedelaya noloshooda dhaqankooda habu socodka bulshada ilbaxnimadooda iyo dhammaan ummaddu waxay ku dhisan tahay dhalintu waa halbeega lagu cabiro horumarka iyo dib u dhaca bulshadaas waayo dhalinta u soo kacaysa bulsho haddii ay leedahay horumar ku salaysan aqoon iyo ilbaxnimo iyo la jaanqaad dunida waxaa la dhahaa bulshadaasu waa bulsho hore u socotay markaana leh mustaqbal wanaagsan haddii laakiin ay dhalinta bulshadaasu ay noqoto kuwa dib u dhacay kuwa aan la jaanqaadi waayo caalamka kuwa ka haray bulshada iyo socodka ummadaha waxaa la yidhaahdaa bulshadaas bulsho aan sii soconayn ama aan ahayn haddaba sidoo kale markii la eegayo sii jiritaanka bulshadaas ummad ahaan waxaa la yidhaahdaa ummadda dhalinyarada badan u soo kacayso ama percentage-ka ugu badan ee ummadaasu haddii uu noqdo dhalinyarada waxaa la yidhaahdaa ummadaasu ummad qarniyada soo socda sii jiraysa laakiin haddii ay dhacdo in ay dhalinyaradu ay yaraato ee dadka waayeelka ay bataan waxaa la yidhaahdaa qarniyada soo socota ummadaasi waa ummadda barbaaraysa sidaa darteed maadaama ay kaalinta muhiimka ay ku jiraan dhalintu waxaa loo baahan yahay inay matalaan doorkooda ay ku leeyihiin bulshada inay xisaabiyaan kuna fikiraan inay iyagu yihiin kuwa birrito ummaddan hoggaanka dhaqan hoggaanka ganacsi hoggaanka siyaasadeed hoggaanka bulsho ee dhinac walba kuwa noqonaya inay yihiin sida aawadeed waxaad kala dhalinyarada laga rabaa in ay noqdaan kuwo ummadooda ka badbaadiya dabargo kuwa ummadooda ka badbaadiya in ay dib u noqoto ay ku jirto casriga ama jahliga aan ummadihii hore ka gudbin waxaa laga doonayaa dhalinyarada in ay la jaan qaadaan bulshooyinka dunida ay la noolyihiin inay la jaan qaadaan ilbaxnimada iyo xadaarada ay ku tiigsanayaan bulshooyinka ay la noolyihiin in ay la jaan qaadaan horusocodka iyo horumarka bulshadaha caalamka ay ummadoodana ka badbaadiyaan inay ummadooda la jaan qaadi waydo bulshada inay ummadooda dib u dhacdo ay noqoto ummad dib u dhacday sida ummadeena Soomaaliyeed haatan haysata